السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت واثنين وأنا سدح دبش سديداد أغسطس سنة كلبض كون iyo 6 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago dawladda Iran oo sheegtay inaysan jirin wax wada hadal ah oo Mareykanka kala dhaxeeya laakiin waxay sheegeen in saldanada Oman ay kala hadlayaan sidii dib loogu furi lahaa marinka Hormuz maraakiibtana ay si ammaan ah ay ugu mari lahaayeen arintaasi madaxweyne Trump waa uu ka soo hadlay muxuu ka yeerina sidoo kale waan idin la wadaagaya labadii senator ee Republicanka ahayd oo diidaneyd ansixinta ninka Trump uu soo magacaabay wasiirka cadaaladda haddana ah kusimaha wasaaradda cadaaladda ayaa waxay ogolaadeen in ay u codeeyaan in wasiirka Trump uu soo magacaabay xilkaasi kadib markii uu soo saaray waraaq uu uga laabanayo lacagtii anti-weaponization fund oo Trump uu doonayay dadkii wasaaradii hore ee cadaaladda ee Biden ay maxkamadeeyeen ama xireen ama baaritaan ay ku sameeyeen in magdhow ahaan loo siiyo goorma ayaa codka ugu horeeya loo qaadayana sidoo kale waan idin la wadaagaya nagnahay madaxweyne Trump in 2 maalmood ka hor uu yiri waan joojiyay duqeyntii aan doonayay inaan la beegsado goobaha muhiimka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha ee Iran sida goobaha korontada iyo waliba buundooyinka isagoo sheegay in ay wadamo bariga dhexe ay la soo xiriireen isla markaana ay sheegeen in arintaasi uu joojiyo wada hadalkiina uu dib u bilaabanayo haddaba arintaasi dawladda Iran maanta waxa shir jaraa'id qabtay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ismaaciil Bachai waxa uu si cad u sheegay in aysan jirin wax wada hadal oo hadda la taagan yahay Mareykanka iyo waliba Iran u dhaxeeya waxa uu yiri marka hore su'aasha waa in loo dhigaa yuu wada hadalku u dhaxeeya maxaase laga wada hadlaya waxa uu yiri waxa uu wada hadalku u dhaxeeyo uu ku sheegay in ay tahay saldanada Oman iyo waliba Iran isla markaana ay ka wada hadlayaan sidii dib loogu furi lahaa marinka Hormuz isla markaana maraakiibtu ay si nabad ah ay ugu mari lahaayeen waxa uu yiri laba wadan oo xuduud la leh marinka Hormuz ayaa wada hadlaya sidaas darteedna waxa uu sheegay in xitaa furnaashaha dib loo furayo marinkaasi uu noqon karo mid ku meel gaar ah laakiin waxa uu yiri wadamada kale waxa uga banaan oo kaliya in maritaanka maraakiibtaasi ay ka faa'iideystaan ama door muhiim ah ay ka qaataan sidii dib loogu furi lahaa amaba xitaa ay isku dayaan inay carqaladeeyaan wada hadalladaasi la doonayo in dib loogu furo marinka Hormuz waxa uu si cad u sheegay in aysan jirin wax wada hadal ah oo hadda Mareykanka iyo waliba Iran u dhaxeeyo oo ku aadan furitaanka marinka Hormuz isagoo carabka ku adkeeyay wada hadalladan in ay la leeyihiin saltanada Oman oo kaliya muhiimaduna ay tahay sidii dib loogu furi lahaa marinka Hormuz isla markaana maraakiibtu ay si nabad ah ay ugu soo mari lahaayeen waxa uu sidoo kale sheegay in uu marinka Hormuz dib ugu soo laabto ka hor intii uusan dagaalkan bilaaban in ay adag tahay laakiin waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan in maraakiibta amarkooda u hogaansama ay si nabad ah ay ku maraan marinka Hormuz haddaba waa kan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Bachai oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Tehran ee caasimadda Iran isla markaana arin su'aal la weydiiyay oo arintaasi la xiriirta ka jawaabay We need everything to be clear. We don't need an ambiguity. The question must be said this way. Our talks are with whom and for what reason? We have no talks with America for the time being. Our talks with Oman, the Sultanate of Oman, and we concentrate on an understanding about the path and the way of providing the world with a safe maritime passage. We are keen to be on top of the line who will have talks with Oman, and we need to determine that way, that path. It will be temporarily, of course, and according to this path, we will be able to maintain the security of the shipment in the Strait of Hormuz. These talks are bilateral talks between two coastal countries
bordering the Strait of Hormuz, and the other parties can achieve some benefits or can play a positive role or can be a sabotage to the agreement. The matter is only between Iran and Oman. In the future, near future, we will say something about that. I have said that the understanding will be about the safe shipment throughout the Strait of Hormuz. haddaba hadalkaasi markii dowladda Iiraan uu ka soo baxay madaxweyne Trump qoraalkan ayaa bartiisa True Socialka uu ku soo qoray waxa uu yiri hoggaanka Iiraan waxa ay markastaba ay ka labalabaynayaan hadalkooda isla markaana waxa ay na weydiisanayaan kulan isla markaana mararka qaar waxa uu yiri waxay naga baryayaan in wada hadalladu ay bilaabmaan kuwaasi oo mustaqbalka dhow qorshaysnaa in ay bilaabmaan haddana waxa ay si cad iyagoo waliba ku faanaya ay leeyihiin wax wada hadal ah oo aan la leenahay Mareykanka ma jirto waxaana uu sheegay wax aan ka wada hadalnay sidoo kale ma jirto ay leeyihiin waxayna leeyihiin ayuu yiri waxaan la macaamilaynaa dawladda Oman isla markaana waxa ay leeyihiin waxa uu yiri waxaan ka wada hadlaynaa marinka Hormuz sidii loo furi lahaa isla markaana uu u shaqeyn lahaa iyadoo aan ognahay in marinka Hormuz ay hadda kontrolaan ciidamada badda ee Mareykanka go'doomina ay ku hayaan marka waxa uu sheegay darbigaasi waa darbi Mareykan ah oo waliba bir ah isla markaana wax ka soo gudbi kara ma jiraan oo dhinaca Iiraan ka soo gudbi kara sidaas darteed waxa uu yiri ilaa inagu aan ogolaano wax ka soo gudbaya marinka Hormuz ma jiraan maxaa yeelay go'doomin ayaa ciidamada badda ee Mareykanka ay saareen marka wuxuu yiri ilaa Iiraan ay ogolaato heshiis amaba si buuxda ay isku dhiibto arintaasina aan dhameystirno Iiraan ha qirato amaba yeysan qiranina laakiin xaqiiqda waxay tahay yiri in aan xal u raadinayno problem ay Iiraan sababtay sanado ka hor hal weyna iska fududahay waxa uu yiri Iiraan waligeed hub nuclear ah ma yeelan doonto marka madaxweyne Trump waxa uu leeyahay Iiraan marna waxay naga baryayaan wada hadal marna waxay leeyihiin Mareykanka wada hadal kula ma jirno Oman ayaanan kala hadlaynaa marinka Hormuz sida hadda afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan uu sheegay waxa uu yiri marinka Hormuz inaga ayaaba go'doomin ku haynaba isla markaana gacanta ku hayna sidaas darteed waxa uu yiri ilaa Iiraan ay iska dhiibto ma jiri doonto ayuu yiri wax kale oo arintaasi aan ka dhahayno marka waan arkin doonaa arintaasina halka ay ku dhamaato dhinaca kale laba maalmood ka hor waxaan idin sheegay in laba senator oo Republican ah ay ka soo horjeedaan ansixinta ninka Trump uu soo magacaabay wasiirka cadaaladda Todd Blanche oo hadda ku simaha wasiirka cadaaladda ah Trumpna horey qareen ugu ahaan jiray labadan senator oo laga soo kala doorto North Carolina iyo Texas labaduba November ma tartamayaan midna waxa uu sheegay inuu san tartami doonin midna Trump ayaa xubin ka soo horjeeda midka Texas oo John Cornyn Trump uu taageeray xubin isaga ka soo horjeestay doorashooyinkiisa reebkana looga adkaaday marka waxa uu yiri mustaqbalkooda siyaasadeed ayaan dhameeyay sidaas darteed ay u diidan yihiin in ninka wasiirka cadaaladda uu soo magacaabay ay meel mariyaan laakiin ayaguna waxay yiraahdeen waxaan hadda haysanaa xorriyad siyaasadeed oo wixii aan rabno aan ku deedi karno wixii aan rabnana aan ku ogolaan karno haddaba marka arinta ay ku haysteen waxay ahayd lacagtii 1.8 bilyan ahayd oo markii Trump IRS-ta uu dacweeyay heshiis ay ku galeen in la siiyo dadkii dhibanayaasha u ahaa wasaaradii hore ee cadaaladda ee Biden in dadkaasi oo la xiray baaritaan lagu sameeyay ama sidoo kalena xabsi la geliyayba ama la maxkamadeeyay in magdhow ahaan loo siiyo arintaasi wasiirka cadaaladda ninka hadda u magacaaban oo ku simaha wasaaradda cadaaladda Todd Blanche wuxuu yiri gabi ahaanba waan baabi'in iyaguna waxay dalbanayeen wardowla waraaqa ay ku yaalay Soomaalidu tirada in qoraal arintaasi uu ku soo saaro xitaa cod loo qaadi lahaa oo guddiga cadaaladda ay u qaadi lahaayeen toddobaadkii dhamaaday waa tii la baajiyay hadda maanta marka xalay ayaa waxa waraaq soo saaray ku simaha wasiirka cadaaladda ninka hadda wasiirka cadaaladda u sharaxan Todd Blanche waxana uu yiri dib ayaan uga laabtay arintii lacagtii anti-weaponization fund ka ee 1.8 bilyan ahayd isla markaana sidoo kalena waxa uu kala cadeeyay IRS-ta xasaanada ay siisay madaxweyne Trump iyo waliba qoyskiisa markii hore xasaanadu waxa ahayd in marnababa aan baaritaan lagu sameyn karin madaxweyne Trump qoyskiisa iyo waliba kambaniyada ay leeyihiin laakiin waa uu kala cadeeyo qoraalka waxa uu ku sheegay in arintaasi ay tahay wixii la soo dhaafay laakiin mustaqbalka lagu sameyn karo madaxweynaha qoyskiisa iyo waliba kambaniyadiisa baaritaan lagu sameyn karo markii marka waraaqdaasi ay soo baxday labadii senator ee ka soo horjeeday ansixintiisa Todd John Cornyn iyo waliba Tom Tillis waxay yiraahdeen waan ogolaanay waana ku qanacnay waraaqda ka soo baxday wasaaradda cadaaladda isla markaana
arintaasi waxay yiraahdeen cabashadaasi inaga oo kaliya ma aanan qabin laakiin waxa sidoo kale qabay xubno kale oo Republicana oo iyaguna xisbiga ka tirsan aqalka sanadkana ku jira marka sida muuqata hadda ninka Trump uu soo magacaabay wasiirka cadaaladda maalinta bari ah ayaa guddiga cadaaladdu ay cod u qaadi doonaan haddii marka ay isku raacaan markaasi kadib sanadka ayaa loo gudbin doonaa maadaama hadda labadii xubnood oo diidanaa ay ogolaadeen waxay u muuqataa in codka uu u baahan yahay uu heli doono isla markaana sidaasi lagu ansixin doono marka waan arkin doonaa arintaasina halka ay ku dhamaato asxaabay aad iyo aad u mahadsantiin intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo